TV hagaha hiigsiga humaaga hirka iyo horumarka guud ahaan geyiga geeska Afrika. Dhab TV Somali State dhowr mar waxaa lagu dhaliilaa in aad TPLF aad support gareynaysay oo aad TPLF wada shaqayseen oo ay safaarado iyo sirdoonkooda ay joogeen Puntland. maalin dhaweytana de madaxweynaha ayaaba toos ku attack gareeyay adiga iyo Puntland. maxaa keenay ma adigu TPLF supporter baa tahay? horta walaal waan kuu sheego kirilka amase gobolkan anigu waxaan leeyahay gobol dowlad deegaanka Soomaalida loo yaqaano anigu horta meeshaan ka imi ayadaan ku dhashay horta hore anigu waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Tergarays oo u dhaxaysa Damerjoog iyo Booq degmada Booq u dhaxaysa halkaas hooyaday tiri baadiyahaas horta ku dhashay anigu aabbahay wuxuu ku xabaalan yahay Mirafille awowgeyna wuxuu ku xabaalan yahay Wanaagsan Arigaas baraagteedana waxa ku taallaa degmada Galxamur فهمتي hooyadayna halkan waa jooga Buruq Saalex waxay degan tahay oo hadda saldhig u ameeshay leeyahay Damerjoog oo ugu tagay sanadkii la soo dhaafay ma fahamtay marka horta Mustafa wuxuu yiri hadana waxa ahayd wuxuu yiri dadaan shaqo ku lahayn eray soo qaatay moogta marka baashu micnaheedu ma aha midaan waxa laga yaabaa dad baa wax iska fikir haystaan midaan waxa ogaadeen ahayni dalkaasi maaragtay ayagu waxa kuma laho ma degana marka anigu to be honest with you this is yani gobolkani waa meesha anigu familygaygi walaalahay meeshay joogaan hadda way ku nool yihiin oo xoolahoodii iyo daaqsintoodii iyo dhulkoodii ah marka way khusaysaa marka nabadeeda ay khusaysaa siyaasadeeda ay khusaysaa nolosheeda ay khusaysaa fahamtay marka cidna anigu magan uguma ihi Mustafa Cagjarna magan uguma ihi qof kale oo Ethiopian magan uguma ihi ra'yigayga xorta baan ka dhiibanayaa gobolkaasi iyo maamulkiisa haddaan Soomaaliya wax ka noqday oo la leeyahay Soomaaliya branch ka noqotay waxa Ethiopia u sheeganaysaa imise qof oo Soomaaliya joogtay oo shalay Soomaaliya wax ka ahayd baa maanta Ethiopia joogto oo ka shaqeysa marka dalku dalkeenii weeye waad garanaysaa waa naga wada dhaxeeyaa marka sax weey fikirkaaga xor baad u tahay oo dalka ka hadashay لكن ما فكر كان فيري انا ما فكر كان تي بي اف شيء دول بدالك كاي يدا حكومتي اي بي ار دي ودنك قبسطي ايغانا ugu sii mataqaana siyaasad ahaan ugu mudnaayo ugu mataqaana oo dalka de haystay oo madax ka aha marka maxaa loo shaqeyn waay wala shaqeynaya sababta waxa weeye dowladda dalka joogtay weeye hadii dowladda aadan la shaqeyn oo dowladda aysan xiriir fiican lahayn seeba loo wada shaqeynaya واقرت لكن هذا برامج كهانه انا wax ka yani ka dhuuman mayo marka barnaamijka kana waa tagi jiray waa shiri jirnay Mala Zanaawi iyo Xayramariyan Disaani labadaba anoo joogo barnaamijka uu dhintay ninka la yiraahdo Mala Zanaawi waa wada shaqeyn Xayramariyan Disaani marka madaxweynaha dowladda Puntland aan wada shaqeyn jirnay amnigan ka wada shaqeyn jirnay waxyaabo saaka ay xiran baa jiray ma fahamtay waxyaabo badan bay naga taageeri jireen marka يعني qofka oranaya maxaa ula shaqeysaa Cagjar muxuu hadda abi Axmed muxuu ula shaqeeyaa waan ku fahmay markii TPLF ahayd waa la shaqeynaysay oo dowladda Ethiopia ay xukuntay hadda miyaad la shaqeysaa TPLF where is TPLF waxaan joogaa anigu waxaan joogaa eedeynta lagu eedanayo waxa weeye hadda TPLF waa farsariya wey waa farsariya anigu Mareykan baan joogaaye xasee ula shaqeeyaa ma maqalan jooga anigu waxa kala shaqeeyaa ma fahamtay yani dad waaga TPL ka tirsanaa oo de saaxiibo aan leenahay oo saaxiibnahay way jiraan oo de ma inkilayo laakiin aniga shaqo iyo hawlaha ay ku dhex jirto iyo dagaalka ay kala dhaxeeyeen dowladda Ethiopia hadal shaqada kuma leeyahay waxa ku sayana ma walageeyna cid kala ma shaqeyn walageeyna ayana ilama hadlin ilama soo doono ina hawada si fiican u kala gareeyaan rabaa dowladda madaxweyne Mustafa hogaaminayo burburkeeda iyo dibkeeda dan kama shaqeynay sida waxa dan ka leedahay wanaaga dowladnimo mana ka aamusaysid adeero haddaan runta kuu sheegaba hadda intii dowladdaanu timid markaan waraysta dadka hadda oo familygayga iyo
iyo reeraha iyaga markaan waraysto runtii ayagaa waxay yidhahdaan relief baan helnayba wanaag badan bay kaba sheegayaanba dowladda cagjar iyo dowladda hadda Ethiopia timidba aniga ra'yigoodaan sheegay dadku markay ila hadlayaan ha noqoto isu socodka ha noqoto xurriyadda ha noqoto waxyaabo badan hadday waxay ku leeyihiin waa better of now dadku marka dee anigu see uga shaqayn karaa dhib dalkayga hooyaday gurigeeda miyaan gubaya anigu walaalkayga waa clear